ganacsatada odayaasha dhaqanka haweenka saraakiisha kale kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koobaad waxaan la tacsi uga dirayaa saraakiishii mas'uuliyiintii ummadda rayidka ahayd ee shalay 18 bisha ku geeriyootay koonfurta magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay samir iyo iimaan dadka Soomaaliyeed oo dhan Allah ka siiyo gaar ahaan qoyskii qaraabada ee ka geeriyoodeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo marka labaad markaan u soo noqono magaaladana Jariiban ama degmadana Jariiban xaaladeedna waa la soconaa waxa ka jira ayaamaha kan in suuq xiraa waa la soconaa lacagteena Soomaaliga ahayd oo u dhalanay in la diidana waa la soconaa dadka saayeelaya maaha dadkoo dhan shacabkoo dhanna maaha waa dad fara ku tirisa oo koow iyo laba la oran karo oo lacagta Soomaaliga diidaya waxa loo baahan yahay dadkaana meel wada soo jeesano qofku sharci ka weyna qofku lacagteena Soomaaliga diiday xagee uu socdo Mareykan baana soo Soomaali mani maxaa lacagta Mareykan haduu Mareykanku dalka kala baxo muxuu sameysanayaa warqad u soo jixjixanaya xoraana sameystay mid kale waxa weeye nool Soomaali baa nahay Soomaaliga lacagta la yiraahdo baan u dhalanay iyadoo qaadanayna qofkii diida oo dadka maslaxadiisa dadka iyo danta maslaxada ka hor yimaada gacan bira lagu qabanaya shacabka waxaan rabnaa inay noo soo sheegaan nagalana shaqeeyaan ama amiir baan u haysanaa awood baan u leenahay inaan qofkii dadka maslaxadiisa danta guud ka hor yimaada sharciga horgeeno qofka sharciga qabanaya sharciguna kama weyno qof kasto sharciga ka weyn ma jiro waxa loo baahan yahay lacagta la diidayo in la shaqaysiiyo qof Soomaaliga diidi kara ma jiro dawladdu waa fariisatay go'aan bay ka soo saadhay waa la dajiyay saalkii waa naxalnimay $1.1 ka yar lama diri karo baa la yiri dollarkii waa kaashkii waa la dhimay wax yar baa laga dhigay oo qaaliga oo sicir bararkii waa la dajiyay waxa lagu leeyahay lacagtii waa la diiday baa dadka propagandada wada sheegayaan qof baa 3 jawaan oo lacag qaadanay wuxuu u geynayaa qof aan sarrifi karin lacagtaas oo ka dan yara wuxuu ku leeyahay lacagta ay sarrif wuxuu ku leeyahay lacagta inta cadadka leegma sarrifi karo uu soo qaadanay wuxuu lacagta waa lagu soo diiday inta soo celiyo wuxuu lacagta waa lagu soo diiday hadda ma geyn dhulkeeda ku haboonayd dhulka sarrifi karay waxaan leenahay hadalka waxaan ku soo koobaya lacagta hal la qaato qofkii ka hor yimaada awaamirta iyo dadka dantiisa iyo dalka maslaxadiisa gacan bira lagu qabanaya sharciguna hortagaya wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi